aynu idinla wadaagno wararka ka soo cusboonaaday magaalada Baydhabo kuwaas oo ku saabsan saaki inuu ka qarxay dagaal xoogan halka laakiin isla markii waxaa gacanta ku dhigay magaalada Baydhabo guud ahaan iyo gaar ahaan madaxtooyada koonfur galbeedba ciidanka qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo la wareegay amniga guud ee magaalada Baydhabo waxaa soo baxay muuqaalo ka imaanaya magaaladaas kuwaas oo muujinaya ciidanka qaranka iyo dadweynihii shacabka ahaa oo isdhexboodaya sidaas oo kale waxaa la arkay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay wasiirka xanaanada xoolaha kaas oo lagu magacaabo Xasan Xuseen Eelay kaas oo ay shacabka magaalada Baydhabo kor u sidaan dhinaca kale warar hoose oo soo baxay ay waxay sheegeen in madaxweyne lafta garan iyo kooxdiisa lagu hareereeyay magaalada Baydhabo gaar ahaan xarunta koonfur galbeed waxaa ka mid ah dadka la hareereeyay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan guddoomiyaha haddeertan ugu doortay lafta garan ee lagu magacaabo Al Saciid Fiqi iyo lafta garan naftiisa markii hore warar ayaa soo baxay kuwaas oo sheegay in lafta garan uu u baxsaday dhanka iyo Itoobiya laakiin mar dambe warar ayaa ka soo baxay kaas oo sheegay in lafta garan lagu hareereeyay lama ogo in lafta garan uu isku dhiibi doono ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo inuu isku dhiibi doono ciidanka Itoobiya halkaas oo uu baxsan doono magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya wixii ka soo baxa waan joognaa insha Allah